سودوات سي شركة برنامج بنقعد لنا خطر سي شركة اوكي ولا ريال سي شركة سونا دواد ولا مقلي هورت si fiican la maqlay horta garaadka waa in la sheegaa codka in la maqlayo in kale mararka qaarkood dad baa isoo qora ama isoo sheega codka waad buu gaabay rabadaan oo lagu jira aad loo maqli karo moogta marka ma jiraa maqal horta maqal hadduu jiro waa jira waa inaad tiraahdaa moogta bilaabana wees bilaabana ayarka wixii baan isku aadinaynaa moogta arrimo badan baan ka hadlaynaa shaahina hore usoo qaata nin walba shaaha hore usoo qaado idinkoo cilata waa dadku afriyiin haddaba Soomaaliya Afrika inteeda badan waa soomanahay weli soo qaata shaahina hore usoo qaata meeshii Puntland baan ka hadlaynaa oo 22 sano xalaalay waxay soo wadaa aysan jirin dawladda federaalka waa arrimo badan kaga adkaatay dhinaca siyaasadda marka soo dhawaada arrintii Axmed Karaash badan baan ka hadlaynaa qorshayaasha Aaranjaan wadanka inay rabaan inay wareeriyaan waxaasoo dhan baan ka hadlaynaa dadkaynu iftiiminaynaa waxa ka socda meesha أكو سلام محمد موسى dadku waxa ma sugi karaan qaar baa noo wad kula moogta wax yar u kaadi soo inaan wixii isku aadino ma aanu dib sheegay dokumentiyada iyo nidaamkii waxaan qoray ilaa nin weyn baan hayo soo fariisan karo meesha moogta inaan wax ajende la yimaado wixii baan marka aan rabaa inaan diyaariyo qodobadii aan ka hadlaynay moogta marka wax yar sugi واحد سوق المدرسة
بلعبنا بسم الله الرحمن الرحيم واحد لبدا قاعد اختيار بسم يربح على لو دقيقة قاعد سيشر قريه برنامج خير به لسه سيشر قريه والله أجر بكو جريه بالله إنك سيشر قريه ورمضان هو يوحي في عمر قال لنا أنا وما تصدر ما إنه وحنا قال لنا وحنا أحسن مركا سيشر قريه الحديث سيشر قريه ما أدري بسم الله الرحمن الرحيم aad baa idin salaamaya horta dadka halkan kala socda taageerayaashayda shacab badan oo xalaal ah jira qoraal ay soo qora qaarkood ka falceliyay markaan halkan ka hadalno oo share gareeya oo dad badan la wadaaga waan idin salaamayna sharaf iyo karaama aan idin hayna iyo ciise ya rag iyo dumarba dadka barnaamijkayga ku xidhan halkan runta qayaxan baa leeyahay runta qayaxan aan runta ka waxshoono wixii jiraan sheegnaa waqti marka waan idin mahadcelinaynaa waan idin ognahay waan idin xasuusanahay waxaan ka hadlaynaa maanta waxa weeye maalin dhaweyd intayna ka hadlin horta khilaafka Aarinjan iyo Axmed Crash madaxweynaha ku-xigeenka xaqa ah la doortay 44 cod lagu doortay intayna ka hadlin waxaan marka hore ka hadlaynaa dawladda Soomaaliya ee federaaliga ah maalin dhaweyd waxay qorshaysay inay deeq xanuunkan COVID-19 lagaga hortagayo ay geynayso magaalada la yiraahdo dhahar baran iyo buuhoodle arrintaasna waxa qabanqaabadeeda iska lahaa dawladda federaalka iyo xubnaha deegaan doorashadoodu ay tahay degmooyinka buuhoodle iyo baran ee reer Sanaag iyo Sool nimankii Aarinjan warkii markay ogaadeen waxay isku dayeen inay qalqalad galiyaan diyaaradda oo yiraahdaan cadka cunay ama ciideeni waa in anaga lana soo mariyaa diyaaradda marka hore wasiirka duulista hawadu waa nin dhulbahanta oo Xasan Waasa lugatoor baa la yiraahdaa waxaan idin sheegay dadka damiir xumadooda inay ka tagteen in ay rabtid inaad caruurtiisii maxaastiisii ilaalisid oo daweysid oo waraaqadii isagu qoraya waa nin isagu waraaqadii isku dulay lahaa gacanta ku qoray ninkaas duulista hawadu jooga kan gudoomiyaha baarlamaanka ay Warsangeli iyo isaga labadaba waa lala hadlay kaas oo amray wasiirka duulista hawada wuxuu yiraahdaa diyaaradaha wax xukuumee waraaq qor wax tiraahdaa safety-giina iyo badbaadadiina anagu mas'uul kama nihin hadii ay anagana soo marin war idinku safety ma idinka bullaali maamul yaro neeca tihiin safety wax ka qodkan dawladii hawadii Soomaaliya Muqdisho taala Muqdisho laga kantaroora dawladda Somaliland iyo Jubaland inta maamul goboleedyada halkaas laga kantaroora waxay iska dhigayaan banaha hartiga wixii aan sharteen ahayn ee hartiga kale la jooga baa luqadaas loo sheegaa mugta dadka caami u haystaan diyaaradahaas khalkhal bay galiyaan dawladaas oo burburaysa waa in garow la soo maraa waxaas uu sharci ma haba lagu yiri diyaaradii buuhoodle ka digaysa nin bidaan la yiraahdo dhulbahanta ayaa ka dijiyay daawooyinkiisa buuhoodle tii kale la baran bay imanaysaa waa la isku mari waayay arrintaas qir iyo qir bay noqotay Aarinjan waxay tii diyaaraddu inay halka soo marta wax kale nimankaas ma diidana nin Jamaal la yiraahdo wasiirka qorsheynta bay ka maseersan yihiin waa wiil baarqaba annagu Warsangeli ahaan meesha ma geysan xitaa cid waraaq uma qorin isaga xiniyihiisa iyo kartidiisa ku tagay meesha dadkaasoo dhinaciisa cawadka hadda wasiirka arrimaha dibadda Aarinjan baa keensatay Soomaaliya ambassador halkan waxaan jiray fadhiyi jiray mariyooyinka u shaqayn jiray xoosh iyo faroola keenay beel baa lagu keenay hartiga meesha jooga oo dhan nin aan beeshiisa soo qorin jirto annagu kaayiga maana soo qorin waxaan hadda u dib ordayno walaana warjamaal wax nagu soo celi warwaba ka gardaranay baan u aaminsanahay isaga xiniyiisa ku tagay isaga safaaradda Mareykanka u shaqayn jiray ambassador Kenya ahaa waa wiil baarqabo nimanka nabadda nolol xamaalanaya laakiin wixii uu dadkiisa ku soo celinaya xaq buu leeyahay inuu ku soo celiyo hadda ma la socota waxyaalo isku khaldan laakiin nimanka kale meesha jooga dadkooda geystay ismaal lacag ka qaatay ilaalush iyo balaayo ku tageen meesha waxayna corruption waxaana la qurahay ninkaas ay ka maseersay nimanka jeerteen waxay yaqaaneen ninkaan iyaga ahayn oo muuqan inay muqooniyaan bay rabaan war Jamaal maalintii ay ka dhacaysay dabayluhu ay ka dhacayeen meesha la yiraahdo Qardho magaalo Soomaaliyeed weeye aniga Qardho iyo Buuhoodle iyo Taleex iyo Xudun iyo Kismaayo iyo Bardaale meel allaale iyo meel Soomaaliyeed dugtaan way sameeyeen bogcad kasto Soomaaliyeed oo nabada waxaan aaminsanahay inaan ku noolaan karayo si freedom aan u mari karayo ka shaahi karayo seexan karayo degi karayo sibada beledweynaha ka dhacday iyo taab ka dhacday Qardho aniga waa noo sameeyay waxa ay noo kala duwan yihiin ma jirto la magaalo Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed baa ku dhawaad in la siyaasadeeyo ma nimanka federaalka ku jira ee reer Puntland especially ninka dhulbahantay iyo ka Warsangeli maalintiiba diyaarad laba diyaar saddex diyaarad bay soo qaaday $1 milyan oo dollarna gar waxa lagu soo shubay lacagta akoonka Xasan Shiraabkaan Puntland marka waa bisab war haddaad Qardho maalintii aad adin yogo aad lahayd Aarinjan oo war la soo gaaray
daad baana qaaday biyihii baa guriga nagu soo galay maxaad u siyaasadeynaysaa deeqda la siinayo buuhoodle iyo baran maxay ku kala duwan yihiin qardho iyo buuhoodle iyo baran maxay ku kala duwan yihiin soo dhul Soomaaliyeed ma soo dhulka idinku sheeganaysa oo lahayd anaga xukunna ma mise idinku haddii idin kartoomada qaadan oo isku sawirin waxa u haysataa inay tahay waxaan jirin oo dawladda Soomaaliya ay keenayso waxaas wax shaqeynaya maaha dadkuna taa way ka gudbeen maalintii nimankaas ku fashilmeen ee ninka Xasan Ugaas oo dhulbahantaha ah homework inta loo diray la yiri gurigaagi go'doomi waa nin la yiri gurigaadi xisaar ku samee xisaar go'doomi waa albaabada ka soo xid maalintii la yiri oo uu diiday inuu wax talaa inna waraaqdii uu boqoro dawladda federaalka u diray dawladda federaalka u diido tira anagu dawladda Soomaaliya hawada Soomaaliya xukunta diyaarad baa khalkhal galaysa idinku shabaab baatiino waxaad ku soo ridaysaan kaare haddii leen diyaarada anaga soo ridayno argixisaan waa meesha laakiin diyaaradda Soomaaliya dawladda Soomaaliya xukunta hawada Soomaaliya dawladda Soomaaliya wakiilka ah hawada Soomaaliya dawladda Soomaaliya loo doob fariisanaya 30 sano baa xamar lagu cunay Nairobi dawladda Soomaaliya la soo wareegtay qarannimadii Soomaaliya markay soo noqotay nimanku meesha yimaadeen talaabooyinka ay qaadeen bay ka mid tahay sheekooyinka dadka lagu cabsiya Soomaaliland wata shalay imaaraadka laga joojiyay ay shalay qayb qaylinayeen iyo dawladda Soomaaliya wax ka wakiila Puntland waa dawladii hadda hadii dawladdu wareegto soo saarto hawada laga joojin karaa laakiin ma doonayno dad Soomaaliyeed anagu dhibaatayno aan mataqaana la qalqalaad lagu furo oo Soomaaliya si kala fogsay iyagu wadaan laakiin iyagu wax iska dhaadhiciyeen inay hawada Soomaaliya xukumaan Aaron waxa ku qafilan garoonkan garoowe ka dhisan quruxda badan in qalabkii diyaaradda lagu hagay Soomaaliya uu yaalo xisaab khaldan bay isku dhufteen qalabka diyaaradda Soomaaliya lagu hagaa iyo qalabka diyaaradaha caalamka ee Soomaaliya imanaya lagu hagaa hay'adda ka waa maamul jirtay waa la soo wareegay dawladda Soomaaliya la soo wareegtay Muqdisho yaalla siciid qorsheed markii wasiirka hawada habaana la soo wareejiyay finkaas waa dhamaaday dawladda hawada Soomaaliya halkaas laga xukumaa diyaaradda Soomaaliya xukumaysa haday buuhoodle tagayso haday xingarool tagayso haday meel kasta tagayso halkaas laga amraya safety-gooda iyaga ka mas'uula wax Puntland ay ka mas'uul tahay ma hawada Soomaaliya nimankaas ka mas'uul xisaab khaldan ayaan isku dhufan luqatoor marka xisaab khaldan baa loo sheegay ninkan Xasan Ugaas laakiin uu isma lahayn in Xasan Ugaas oo dhulbahantaa oo buucama ka yimi oo aan laga qadeen buucama oo aan dugsi hoose lahayn oo aan waxbarasho haysan oo aan deeqdi lagu siyaasadeeyay oo juxa markuu wasiirka waxbarashada ahaa labadii wiil ee dugsiga sare lambar 1 ka galay ay buucama iyo baranahay ee la musuqmaasuqay intuu waraaq loo dhiibo la yiraahdo saxiix aan waxaan u arkaa nin waraaqdii labada indhood laga soo saari lahaa la hordhigo la yiri saxiix laakiin way ku fashilmeen awoodii dhulmaantaa garoow joogay oo sangali garoow waxaan u sheegayaa waa sixrintiin quraan isku akhriya oo maskaxdina shaqayso wixii ummadina dan u awayna ka shaqaysan diyaaradaas deeqbay siday waa wax iyaga laga furtay 22 sano ee Puntland jirtay waxa la helay waxay geesay ma jirto meesha waxay geesay 22 sano ee meesha ka tilinaysay magacun bay afka ka sheeganayaan magaca afka laga sheeganay waxa weeye nimankaas waxa la helay waxay diiday ma jirto shakhsiyaad dawladda federaalka ku jiray kula jiraan challenge horumar meesan diidana markaan waxaan la yaabay oo aan ilaa hadda aan isweydiinaya war Puntland waxeedu ma cadka cunay ama ciideeyba wixii hadaan iyagu hayn ma inay loo geeyaan ba taa markay ku fashilmeen oo ay diideen waxay la hadleen ciidamadoodii u joogay baran oo ay dhaheen arinta ka shaqeeyay oo surtaaga waliba abwaanku aad buu arinta uga shaqeeyay kan gudoomiyaha baarlamaanka lagu sheegay bal nin gurigiisii ayeeyadii iyo aabihiisa baran ku nool daawooyinkan ina Maxamed Xasan qof reer Maxamed Xasan oo baran ku nool oo xitaa isticmaalaya ma jiro hadda la socota hadan xitaa si hoose wada hadal isaga loo wada familigoodii baa degan iyaga inta faacadsanay ma la socota baran baa la geenaya waxan hooyadii walaalihii isaga markuu wax taga socota askartiisii baa joogta ninka raba gurigiisa inuu gubo soo ka gudoomiyaha baarlamaanka ma ee shalay dhoobana in adeerkii cadkii looga bacsaday qaadso qaatimo oo barin isaga la cunay dadka noocaas ah raba inay idin taliyaan Aaron iyo Maxamuud Salaaman u shaqeynaya Maxamuud Salaaman waxay rabaan dalka inay nominate gareeyaan oo iyagu xukumaan oo aan qofaan iyaga ahayn aanu qadin wax kalena kama xuma hal nin bay la dagaalsan yihiin ninka Jamaal bay la dirsan yihiin oo ay ka soo horjeedaan wala dawladda federaalka aan la dirsan wala farmaajo aan la cid kale la dirsan ninka fikirka ay anagu aanan meesha geysan oo magac warsan gali ku tagin oo isin warsan gali ku tagin oo isagu xiniyihiisa kartidiisa ku tagay wuxuu isagu dalka u soo celinayo isagu madax banaan yahay oo shakhsiyadiisa iyo karashadiisa ay tahay maanta dhahar wuxuu ka furiyay 3 mashruuc oo waaweyn leedkii magaalada in lagu xiro waa daawan doontaan waa soo shirkay beelo marxantiga soo fogeeyay iyo suuq dadka loo dhisay sariibada iyo gurigii dawladda hoose ee magaalada waa dawladda hoose hadda magaalada ee Puntland ay ku shaqeynayso gurigii uu danaysan xan lahaa baan dhisayna markaasuu rabaa isagu inuu qorin lagu qabto anaga dambi galiyo dadka noocaas hal nin oo dawladda federaalka ma qaban xafiiskiisa ninkan dooran deegaan doorashadiisa waa dhahar xafiiskiisa qabtay
22 sano 1998 baa meeshan la aasaasay hal sariibad oo suuqa hilibka lagu iibsado nimankaas ma hirgelin maxay dadku u sheegay aniga muxuu ii sheegay marka ina Jibriil Cawl aniga muxuu ii sheegay marka muxuu ii sheegay iyo lugatorka Xasan Ugaas waxay ii sheegay iyo kuwa kale la mid ah meesha jooga waxa la waxay ii sheegayaan ma jirto waa niman fashilmay ku fashilmay siyaasadda oo baabay haddii marka aanay waxba qaban kareen oo ay ceeboobeen soo ma ahayn inay yiraahdaan war dadku waxay ciiday doon Ilaahuma Israa'iil ka helaan meel alaale meesha wax ka helayaan iyaga u madax banaan u sii daayay in la siyaasadeeyo cunaha la qabtaba ilaa anu haddaan waxba u qaban kareen dadkayga war meelaha soo bariya wax iyagu soo meelahooda ay ka soo helaan soo inay qaataan ma meel siyaasadeed oo diyaaradu ma soo deegi karto iyo way soo deegi kartaa lagu murmo ma oo waliba homework loo dhiibo kuwa dhulnaantay warsan galay garowga jooga soo waxa suuliidnimo iyo sharaf darro ma ay baasayaan aarinjan ay baasayso marka qardho la rabo in loo soo gurmadona telefoonka Jamaal baa la wacaya iyo bidaan na soo gaaray dad baa naqaatay waa kuwiis halkan niyan keenay marka waxaas wax aqliga gali kara ma anaga aqliga wax gali kara ma ummadda kale aqligooda wax gali kara ma ummadda Soomaaliyeed waa la sii kala dilaya aniga qardho way ismeeyeen sida aan ugu xumaaday waxa qardho ka dhacayaan buuhoodan oo ayaan baladoonina ugu xumaaday dul Soomaaliyeed way kuma farxayo laakiin aaranjan iyo Maxamuud Salaamaanka garowga jooga waxay rabaan wax kasta inay siyaasadeeyaan maalinta qardho dabku balaayo ka dhacdo balaayana haysta way maalinta magaalo kale oo Taleex balaayo ka dhacdona waa la siyaasadeynaya Taleex waxa la geenay anaga halna soo marin maxay idinka leeyahay soo marinaya meeshin garoon baa ku yaala garoonka xaarxaartay mid la mid baa ku yaala garoomada dad diyaarada waa private chat way iska digayaan alaabtan iyaga sida mala socota in la siyaasadeeyo anigu dii waxa loo rabo garow in la mariyo wax kale ma aha alaabta la kala xarayaa wixii macluumaad ku jiro oo dhan waa la baxaya oo faa'iido ah inta kale ee qashinka ah baa dadka loo soo dhiibaya hadhowna waliba qashinkaas la isku sawiraya oo waxa la raacinaya wasiiro si Puntland u soo dhiibto kale waxaas wax dawladda Soomaaliya waxa arkay dad ka hadlay oo la deeqda tan dawladda Soomaaliya beesha caalamka siisay beesha caalamku deeqda inay bixisa la isku hayo laakiin dawladda Soomaaliya soo marisay عدي دولة سوماليا دودن كما أي سمن حمر ما بين بين سوشيجنا تركيا أمريكا نسوا دقيقة جرجار مركي حنون كانوا كل عاي وأدونك أمريكا أدونك دولة وقوة كمية أدونك واحد لسكول على عيال معها دولة سوماليا دولة صدنا سنة بربع أو صوت كمان يوي أمريكا كان على الصين يعني تشوفنا ودقيقة أدونك وصوت دريا ولا تعالي تركيا لودري قدر يبحرين يبقى لودري مركي بلاي قناع اللي قدامي waxaas wax ceebama dawladdu way iska caqabtaan wana soo diray iska bedda Soomaaliya oo 30 sano burbursanayd oo dagaalo iyo beelo iyo balaayo ay aafaysay waxa ka sugaysa marka nin baa wuxuu ugu sheekeynaya maxay farmaajo iyo khayr ay daawo u sameyn waayeen ma sameyn karaan daawo farmaajo khayr hadii yimaadeen dalka 20 sano burbursanaa shaab la dirinay Puntland maxay u qodi weeyday adigu hal ceelmaad qodina hal ceel 100 qurba ceelka lagu qodaa faamiliyada Soomaalida ee qurbaha jooga contribution inta sameeyay ceel qota dawladdan oo 20 sano jirtana dadkeeda markay abaar u dhacaan ceel gaaja waxa loo dhimanaya biilaan baa loo dhimanaya marka ama Turkigu ha bixiyo ama Israa'iil ha bixiso ama Qatar ha bixiso ama Cumaan ha bixisay magaca dawladda Soomaaliya lagu soo qaaday dawladda Soomaaliya magaceeda lagu soo qaaday qaybinteeda iyo mas'uuliyadeeda iyo ilaalinteeda iyo gaarsiinteeda inay dhilfargarayso gaarsiiso meeshii lagu talagalay dawladda Soomaaliya ay mas'uuliyad ka saarantay cid kale diyaaradaas dib burburto xitaa mas'uuliyad ka saarantay iyada damaanad qaaday iyaga soo kreeyay iyaga saaray mala socotay Puntland waxba laga ma rabo dadka deegaankana loo wada dadka deegaan waxa laga rabaa deeqda la idin keenayaan la siyaasaday idinku qaybsada cusbitaaladiina iyo meelihii lagu talagalay u qaybiya dadka meelaha ka nacnaclay ee baran jooga inuu Xuseen Soomaali uu kamid yahay oo amarna al-shabaabka laba saddex telefoon buu isticmaalo waqti ay sheegnay Soomaali waan warsan galay Axmed Garaa laba saddex telefoon buu leeyahay mid Soomaaliland buu kula hadlaa Soomaaliland buu ugu tirsanaan jiray mid al-shabaab buu kula hadlaa mid Daacish iyo Cabdulqaadir Muumin kula hadlaa من الدنيا بكل هذا صدق تلفون أنا واحد بقى آخر كانوا يسقط خلطوا يسوي رهوانه كيد دنا قبته إنه كي عبد القادر ما قبته لو أنا إيمان لي تذكر نوع عاسى برنشوجا أو رهوات كانوا تريان ورهوانه عرقلة ذي وتشير هانك وين هذا برن بتاعنا برن بولجي تاعنا برن بتشوج تري ميل مسلم كتبن هل قصو تاعنا يسوي كان آلين سعيد تقدق مدعى يسوي والله مدوي ما أنت تذكر كسهور تجيب كمدعى هرمك isagoo kalon loo laas qoray joogan uu campaign kareen duqa degmada ka dhigay wuxuu hay yaa yaqaan waligeed ma maqashin hebel timir wax la yaqaan ma wahayn xitaa dad la yaqaan siyaasadda ku jiray ma wahayn beesha soo beel sharaf leh laakiin ninkaasu waa nin wax ka siiyeen waxa ka sii ah sidii uu weyn yahay iyo sidii aanu dadkii dhalinyarada ah u la tartamayay uga hiilinay ilaa hadda waa ka qoomameeya marka qolf weynaantiisa aragtidii futashaariga markuu nin macnaalaad moodisa wax macnaale oo ku dhex jira ma jiraan isaga iyo inax soo Soomaaliya duqa degmada labaduba aad uga soo horjeedeen waxay ku xidhan yihiin abwaan oo baran joog oo garow joog marka niman saddex telefoon sita
abwaanku xitaa 4 telefoon baa loo marinaya micid baa og uu ku xiran yahay bariga dhexe cid ilaali cid ogaan kartaa mid dadka noocaas marka dhubaantii warsangeliyo inaad ka baxdaan oo ka sifowdaan war kun qof oo meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan aan la aqoon waxa ka muhiimsan 10 qof oo nadiif ah isku jeedaa 10 qof kaliya oo isku nadiif ah oo isku jeedaa ayaa ka wanaagsan dadkan ha ku wareerina maamul goboleedyadanu iyaga meel 20 sano ay Puntland jirtay waxa la aalay waxay soo kordhisay ma jirto aan ahayn Cumar iyo Ciise iyo Cismaan inay isbedelaan maxaynu ka dhaxlay waxaan ka dhaxlay sheega hal wado lagama dhaxlay hal cusbitaal lagama maandhow waxaan daawanayay Outbox cusbitaal laga hirgeliyay oo magaalada Outbox la yiraahdo Puntland way sheegataa dadka deegaanka dhistay dad dhulbaanta oo qurba jooga baa dhistay cusbitaal khatar ka dhiseen dadku waa inay iyagu fahmaan contribution inay ururin karaan lacag contribution la ururiyo sida dumarka hagbad inay oo wax qabsan karaan garooway waxna la soo gaara iyo Soomaaliya waxna ka baxay idinku cusbitaalka iyo waxbarashooyinka iyo ceelasha idinka qoran kara lacag la isku dardaray baa lagu habeyn karaa Puntland markay wax weyn idin ka dhigin inay wax qaban karto waxa ma qaban karto garooway dhaafi laadahay nimanka ilaa iyo hadda aan xitaa lahayn kayd qaran oo masiibooyinka markay dhacaan aan lahayn ka hor maadhow halkaasaan ka sheego soo celinaya Somaliland ta go'day isaaqa ku ay marka qaar waxaan ku amaan waxa kamid ah wuxuu dawladnimo u yihiin nimanka ku ay aragtay adduunka dhan uu go'doomiyay waxay leeyihiin kayd dhan way ugu targam masiibooyinka markay dhacaan bal Puntland 25 sano jirtay lacagtii waxa laga ururinaya masaajidada buuqada adeeq ruux ka dhacay xabiib baa la oranay xabiib garka xabiib inta uu qabtay ayaa kal laban laab ka badan inta ay Puntland qaban lahayd marka dawlad tuugsi ku nool oo iyadoo rabto inay ina aflow faad aflow iyo ay la hadasho oo ku xiray masaajidada oo dadka masaajidada loo kala dirayo oo leeyahay tawfiiqna hal la aado mas'uuliyadda iyo mas'uuliyadda hal la aado oo laga tuugsanayo masaajidada adeer waxa dawlad ma aha dawladnimadu saan ma aha dawladnimadu waxa weeye dawladnimadu inta way ka macno weynta dawladdu waa inay wax kasta u jeed ka leedahay waa inay qorshayaal dawladdu leedahay istaraatiijiyadu waa inay kala waxan aday dhacaan hadda qarno wixii ka dhacay Puntland way ku ceeboodi kayd ma hayaan ciidan xitaa tababaran oo dadkii qaxay gura oo meel geeyo oo hantidooda ilaaliya ma hayaan dadkii hantidooda wax taa la boobo marka masaasa dawladnimo marka ninka warsangeliyo ku baantay ee waxaan eeganaya ee 20 sano indhihii ka soo dhaceen ee dawlad baa noo soo socota leh garoowa wax nooga wax idin ka soo socda ma jirto garoowa sheekh ina xasha lillahi ha habsaaminina dawladda Soomaaliya ee xamar joogta nimanka adduunka dhan la dirirayo ee argixisada la dirirayso ayaa dhaanto intaas oo kun oo kilomitir soo jartay buuhoodna keentay daawo barana keentay 20 sano ku sheeganayay hal cilbi ka qodi waayay iska daa inay ku qodaan deeqda adduunku siiyo dawladda Soomaaliya loo mariyo ee waxbarashada ah ayay musuqmaasuqaan habar baa la yiri oday baa la wuxuu qabi jiray 5 islaamood maalintii dambu uu xanuustay oday xoog weyn uu ahaa geed hoostii uu ku dhacay shantiisii islaamood baa odayga qaaday muddo badanna odaygu oday xoog uu ahaa oo shaqadiisa guriga ka soo baxa oo aad islaamaha waajibaadkooda u mariyay markay qaadeen geed bay geeyeen meel bay u waabeen adigu way baanteen shantii islaamood baa isugu tagay odaygii markuu meersay wuxuu yiri islaam waliba meeshii haysay waan xasuusna macnaheedu ka wadaa qof waliba meeshuu hayay qof markuu xanuunsanayona qof waliba meesha uu qabto uu og yahay qofka qabta meesha dhaqmanaysa iyo qofka qumiya ee kor u soo qaada way u kala xisaabsan yihiin Puntland waxaan leenahay Somaliland reer Sanaag iyo Sool odayga xoog weyn weeye meelihii aad hayseen islaamo waa iskaranaysa anu si faafaahin maayo hadalka islaam waliba meeshii 22 ka waasuna in ka badan 30 sano jireen kuna 22 sano jireen inta lugtii aad hayseen odayga xanuunsanaya bay dadkaas la mid yihiin meel bay ugu qoran tahay inta in ka dameeya oo dib leedan xasuusan doona oo leedin soo eegi doona ma jirto sheekaas soo xidhatay dadka deegaanka looga baahan yahay inay tashadaan iyo oo wax ka dhex baxaan oo maskaxdooda ka shaqaysiiyaan war maxaa idinka idintana intaad xaggan raaci lahaydeen oo xaggan raaci lahaydeen waxa ilaahay ku barya halkiina dawladnimada Soomaaliya ku suga halka calanka Soomaaliya intuu soo gaariyo meedii ku suga ilaa waa nooleedeene ninka baran jooga maxaa ka maqnay ninka buuhooda iyo jooga wax ka maqnay hadii taleex barwaaqo waxay iyaga saa ka nabad badan ilaahay ma ku dhaartay dilka qardo ka dhaca iyo garoowe iyo maalin kasta meelaha la ooto iyo isbaarooyinka yaala iyo ciidamada yaacay maando 200 kun baa lagu dhacay amniba kaba jiro baran 200 kun lagu ma dhaco gaari lagu ma dhaco dadka la qabtaan oo soo qabanay wax dila maando laba nin baa nin dibarso waa safe waa lagu noolaan karaya
idinku nabaddaas aad haysataan nimankaas oo iyagu nabad ma haystaan tashay arkaysan gudoomiyihii in la qarxinay anuu kuma faraxsanin kalkacayo gudoomiyihii hore kale saaxiibkii gujir garow waa lagu dilay ilaa hadda cid soo qabatay ma jirto masiibooyinkaas nimankan haysta masiibooyin rabaaniya waan wax iyagu sameeyeen argixisada iyaga quudiya garow iyo galkacyo degan yihiin la shakashay kuma jiro marka idinka yaali waxaanu idinkana way idinku soo socdaan waa la idin keeni doonaa marka iyaga soo daba jaraan ee ay ciday roobaan ku dilaan waxa loo soo xawili doonaa magaalooyinka kale wayna hadda midnimadiina ka shaqayn iyo wada jirkiina aydan qiyamkiina sharafkiina soo xushin taas ay ku soo socota waa shirka ku jiro wallahi billahi taala wayna ka maskaxdiina waa inay ka weynaataa afarta wiilay yar ee Soomaaliland ka soo cararay ee shabaabka ku xiran yaa wax yaa wax weydin kara kan hadda duqa degmadu cadal u ahaan jiray yimaqan kaluna wuxuu ahay tan siyaasi ma qaab family baa lagu doortay nimanka aan Saciid Maansha loo dhibo iyaga lagu geeyay meesha in weligii karin ka soo durduriye ma kaas ah maanta anaga inuu wax noo yeero diyaaradu weliba diyaaradu raacin diyaaradu sheegaya safety-geedana aqoon waanu raacin waanu aqoon route-geedana garanay xitaa garoonka lambarkiisa lagu soo degay ee course ma garanay baa laga yaabo dadka noocaas ah dadku inay dhigeysan dadka noocaas waa inay ka gudubnaa la iska ixtiraamo meel la fariisiyo laakiin waxba yaan la weydiin dadka maskaxda Ilaahay siiyay ee siyaasadda la garanayo ee aynu dooranay waa inuu talada weydiinaa oo ka dambeynaa dadka noocaas ay isimada labada waxba yaan la weydiin isimadana meel iska dhig anigu isim waxaan u aqaan maalintii mag iyo reer isqabtaan iyo dad istilaan inuu dhexdhexaadiyo weli ma qashay isma jirteen oo Maxamuud Salebaan oo siyaasadda ku milmay oo meel ka nacnaclo taagan ama wax raba inuu soo mariyo haddii xitaa waxooda wataan hoos bay u wataan soo hoos u wataan laakiin kuwaanu meel kasta way taagan yihiin luqasi taagan yihiin deeqdii bay qaybinayaan diyaaradii bay hoos taagan kartumadii bay gurayaan shaqadoodii ma shaqadii waxa weeyeen inay gur fariistaan tusbaxa aan kale inta iska qaataan iska cibaadaystaan dadku markay isqabtaan ay u garnaqaan oo halkooda ay joogaan oo yiraahdaan waan idin ducaynay ducada ay leeyihiin shirkada marka la furayo ducada ay leeyihiin shaqo kale ay qaban karaan ma jirto waa isib wala xilbaan baan xuli karin ismadii aanu naqaanay berigii hore sheegin anagu beelaha inay dhexdhexaadiyaan laakiin ismadan hadda siyaasiyiin bay noqdeen kuwa ma jirtaan ku siyaasiyiin ma wallahi inaan ku milmin siyaasadda nin gabgable telefoonna way diraan oo de munaafiqada Maxamuud Salebaan kama gaari kareen oo 5 6 9 telefoon bay sitaan way meelsa kula hadlaan laakiin wax gabgablo idaacad taagan oo baqbaqle labada reer baan arkaan warsimadina sharafta waxaan idka cusanaynaa ilma adeerayaal sharaf baad leedihiin anagu boosaskiina isku mahaysano aabayaashina ka dhaxasheen idinka iskale waan idin taageersanahay ducadii baan idin siinay shirarka furo oo xira inta wax ka dambeeyo aad geli kartaa ma jirto 30 sanaad qarabsanaysiin oo waxaan wadateen oo isii usitay marka naga daay xasha lillahi naga daay dadka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed u oomay ha kala qoqobinina calanka buluuga ee shanta xidigood baa dadka ka dhaxeeya maamuladan reeraha iskale dad baa iskale waa reero xaafado weyn yaa waqti badan idinka ka lumin hadii idinku inta isu tagtaan ay idin wax dhisanayn oo maamul dhisanayn ina labadooda u kala talaabtaan waa xuduud isaga jartaan wax macna idin sameeyso oo berina halka la idinka daawado berina saadamana garow la idinka daawado maxay idin soo kordhinaysaa war magaalooyinkiina jooga halkaas khayrku idinku imanaya sida maanta diyaarad duulaysa ee Farmaajo iyo Jamaal iyo Khayr ay soo direen irka maraysa baa idinku imanaysa berina mid kale oo ay soo direen halkiina isku suga inaad u talaabtaan garow iyo Hargeysa u kala talaabtaan waxba kuma jiraan waliba garow iska ilaaliya wax ka soo socda la tasran taagay anaga gaaskan dadka taagan kamid ah wata idin joogo waa aan idin waa sixraan aan u sicir baa igu jiro quraan man isku akhriyo waa laga furtaamay wax dhex yaala nimanka oo ay soo wadaan oo soon ka soo naasacday aan gooyo iyo hagardaamo ahayn xogaaga yar iyo deeqda yar ee dawladda federaalku ku siiso inay ka hor istaagaan mooyaane wax faa'iido ay ku siinayaan ma jirto qodobka halkaas aan dhigay diyaaradda qodobka labada ungariya waxa weeye khilaafkii gudoomiye ninka la yiraahdo Axmed Karaash Puntland 1998 markii la doortay ee dadku isu yimaadeen saddex dharaar baa meeshan isugu yimid wixii kale ee soo raacay anagu leelkase iyo awrtable iyo sharaf iyo karaama aanu haynaa waa dad Soomaaliyeed meesha degan laakiin dadkii meesha dhistay saddex qoloon bay ahaayeen wixii aanu naqaantii aanu si wax loo qaybsaday waan sheegaynaa moogta saddex dharaar ee meesha lagu qaybsaday marka Maxamuud Salebaan jirteen kale ma qadiyay madaxweynahoodii bay qaateen marka uu sangalina gudoomiyihii baa la siiyay marka uu baahantay madaxweynahoodii baa la siiyay
ساسا بعشرة حريق شو ديبكا هلا اسكت المدار وسيرة إيجا هقعتين تدك هاللجويين هخياميين مشاريع جرن هعنين صوت لبعض سنة جرو وعاصمة هيسكع هتوهيرها هيسكشيكتين يسمى حمود أنا على هاي هذين وحاسوا إنه اللي قدوا القاعدين عبرتي عندها على عيد تطعنوا يقدر استعمل مغرب وحاسوا إنه اللي قدوا القاعدين يعني كمان يصير هذا الشيء قالوا أنا على إياه مركب قف كده إني حبيت كرداني الدنيا برا ما كنا ويرران إياه يعني قف كده إسبارة ودكتان إياه وحاسوا إنه شخص وضيعه عدكوا هي ستميسج لكن بلايا واحد عظيم مركي وحي اللي وها شيء هالشيء سكيب بالشود وها شيء أي واحد كتبه وأي كتبه ميه دور عضو يرران والله دور قاطي وعندنا أي صلاة عظيم ومدحوين كحجين كي حضر للدورتي الشرعي جاها سيد الدستور كليجيو أفرتن إيه أفر حلبان به إنه شنك كيني كرام هلك قاضي كرام للدم أي حد اللي جلجلوا لقى قاضي أحمد كراش لوها يستحق لوها قاضي مدحوين كحجين كي هراء فروري وأها إن على شراء لو نجلع عبسة على شراء ناس كم مسكين وحبان لتشوفين بوها نور أحمد بوها غير كيسيبو سكوترا فرولي عروق تسا قريو ديبي واتو ويراري تريح ما أنت لو لعبتي هرتي يداردنا يورونيين يسقى دبعتير قليه ولا هالكيس حتى اللي قلت له ماشي كونفلكتي بو أبوي اسكدا إنه واحترق إيه شوف في دي يسيبو كان يحمل على نور أحمد تريح أيوة دتكي أصلي مديدة أصلي وأشتي طبعا لو عتمتي إنك قابل يعني شرتي يا رجال أنا عدك رجال عن ماي هيرك سر رجال عن يروح فلاي وحاسولنا يا وش ديبي هم وقع أدري فرولة يسوي ديارته راعية عالم بو ديارته كردانية كي قلمدوك مشاريع بو قليا دورة الصومالي وهيستا لعب بو عنيا وحدونو قصيا مشاريع الصومالي سنة اللي وصو قاطو عنيا يسقي وحا لغو مشغولي رير كاقي خاتومي هالكن تاغن أحمد كراش بهالكن تاغن دولد بهالكن لغا ديسي صور وحانا كاس شقا آن وهين بالوبتري ولا مشغولي فريا لبعتنك الساعدود وحكو مشغول سيهي منو رير كسوهار يتقع سيدي بي ساعدو ودعضي وكل ما يستي سيقو قدب كجرا وقرو وقري كتير وميلا عم بقى كره عبسان عشان تبدأ مية ومخشى أنا وحنا كذا حديث وي بس كما هذا وحنا أجنها نشتغل عنه واللي يغير معه لما أنا وحيوده ورنا يمسك أنا وهالكاسان فديا وحكستو تاك على الصعدة قرو لستي قرو وجوجا هالكاسو كجرا عند أوجشار متشرتو وكجرا قدام وحبداس أوجنا واحد قليه فرولة إيه محمد سليمان واحد رأني كردك كدلان بابيان هيركيس كدلان قف هيركيس على القدرة مركا إيه تشيك كسر حرام وحنا قلنا يقف تنبيله سواء ما قف كالشباب كأوجلا وقف ضد بدن أنتو الشباب كنا ما كانت أوجلا وبدن يكتشر أركيس الصومالية وضد لاي قف عادي بني آدم وكم بيركرو هي تكو أجانب كأجلا وضد كريمنال دنبية دل خود كجلا بنجيا دعي تدري ويكونون تان هذا تذكر بدن يكتشر وبرحبة يضد لاي محمد سلام قصة dadka la jooga iyagoo nadiif ah u imanayaan dambi bay faraha u gelinayaan ama dadka u yimaada waa dad markii dambi ku jira sida argagixisada u dhaqmaan ninka odayga ay nadiif tahay markii faroola la doortay nin nadiif oo miliisa marmar u ahaa waxay ka dhaxeeyay dhulbaantay gali jirta laakiin maana allaaleeyo maalintu iyagu ku soo biiray shanta farood baa dhiig loo galiyay adduunka oo buko taleexda u dhow oo reerkiisu tagay ma tii karo halkaas uu xisaar ku yimid qodobka halka dhig عامل نكلا يرهدو يسير كحيجي عبد كحيجي نكلا يرهدو عبدولي كحيجي عاد مسكح بدن بوحة شيء كذي وكلا لجودي بو هذا وير هل كنت وحنس ورحمدين شبابي بو هذا أنتو تجي أي حقلته يسوي المديرين بعشرة كيلو صفر يستي وحبا اسمه يورا لما كان هود وكعقل بدين لما كان حقلته سنة واحد فالضب داود أرتف يوتيوب وتجيلي كرتان هوم ووك أي محمود سلام كدريان بواحد إنه مركو ماشى تبغى حبة العدد والبنتين اللي يسكدلو السجن قدون اللي كليه قرب كوريا لوجو سؤال كيسة وكتير وكقادم واحد تذكر أنا أتجي بوجري أنا على صحة ليه أنا وحبة مقعدني يعني كي الدين عتا كم خصبي توادي عارك شرف يكرام وكل مست إنك سو عبدول اللي ما أنت واقع سواء أنا بطل إثيوبيا فديا يا أبي أحمد بن عتاق أحمد كراش تيبا ربع هذا الموسمين قرق هذا لسعانو تك تلاح ويرة حدهم تك هل كان بدان باوريجي دول بانتابع هل كان كسود دقي يا رضا بوه والله ويرة وحرب عيني الدجال كريان تدبعت تجر تميز السعاديين صوت صن قربها تشوقي دور وسير صون نقضي خاطرنا صو عركي يقان وحوي هاي
يمشي ودقيو يمشي ورير كسب فري يقان حمد كراش من أي كنت دقي كران ما أنا على شراء كلا وسكتشري أهامه روح كب حبيبي دين يوم هداد وريكتم وروح لسوق قبطي هداد أقاسمه مدحتوية ورتودا دي شيء أقاسمها جود مدحتوية يكوحجين كيسة لا هذا مشرتين بقى هنجري ولي جود تاريخ طيقة كلا هنجري أقاسمها مدحتوية يكوحجين كيسة تريها مدحتوية يكوحجين كيسة نمكن أحمد كراش اللي هذا بشكل اللي يبي من معان جا يقان محمود سلام السلام الله للقرية وقلت كان كابو هايستا وحبدو كبيا لا أقاسمها مدحتوية مركل لما عايبو كي هذا الكوحجين كانوا غير أساسا تريها مركل لما عايبنا كوحجين كانوا غير أساسا أقاسمها مدحتوية إنه عمر محمود أبو هانجري بريق عبد الله هذا بين شيئين وأدوق قمان كرتان إن أديرك سوها إن بيحب على ونجري ريع عبد الله إذا كي بدأ وصاصو أيوه هيسنجري نكي كوحيجنا عبد الله واقن ودي كوك أحسن الدنيا بواها لبدل لبن عمر محمود هاي أدوق هاي كان على وحص هاي كان على مدحتوية لبن أو مدحوينه عمر محمود هاي لبن كوحيجنا عمر محمود أدوق سومان لا أنت قدحتها كمان دعوة حين ما كان يساق حتى فرصة ميانو كده بيرسي بميلك داقة الكاتوسيين كده بيرسي داقة تاج بحتى على قطسية أنا حبك شقينا بالولي كاسونا مش جوجا مدور وانتو مدور سنجلا قطسية حتى مد جوية على قطسية مش سكتاج وحنا تذكر أنا وقوحيان دولة نمدي كرنا يعني تذكر وهيان لكن محمود سلوان سجال محمود سلوان قدوسيا مع قبل عطتك كرسال محمود سلوان ما يحتوي يشوف وحسم الدولة بقى حسم الدولة ما حتى تذكر أجانب كوي من كيا يقصوني markuu yiraahdo kan waa in adeerkay kan waa wiilkaygii kan waa adeerkay kan waa awooway kan waa xaaskaygii kan waa seedigii markuu yiraahdo ilaa dadka ajaanibka madaxtooyada markay soo booqdaan ee dadka meesha fadhiya waa la isbaranaya ninkan muxuu ahaa waa inaad dadkii macna u samaysaa waa inaad tiraahdaa ninkan xil buu haya kan xil buu haya laakiin marka maxuu soo dhaqanka ma yaqaaneen dadka meesha fadhiya oo dhan raad ugu eeg hadii UN kan la kulmayo iyo hadii kan beesha adeeq bixinaya la kulmayo iyo hadii cid kasta la kulmayo dadka meesha fadhiya waa in wasiiro ah oo iyaga u sujuuda وأنا معناه كلاه أو حتى إنجليز كانوا جوهم لي فاهمين ما كينا حتى تذكر اللغات الفهمية أبتو مش قليل بارجعنا إيه ما لا صعب هدي كوا ويانا كوا يجا أبي كينا بلين أنا محمد حتوية الحيل كهين وكشقين وميرو كسوق الآن لا أقول بكرسي إسكفر دي أنا كتير أنا وابا حشون لهذا ماشي كم شقيه قشوا متشوجو حكى كمان يعرو سود النماء يدور النماء إنه عيارو ما مهد عبد الله الدنيا اللي يراد الدنيا ولا الكيسة مدحتويه ودحتاجين وعشان يعرفن شيء إنه وسحر بمدة والموش قطر وملها كالعاد ولا الكيسة بحلاية بالموضوع وحي يعني بالكسر أكون يورد تراسفان أنا سكقاطه ملها علك عن الدولة مدحتويه دي ودحتاجين هاي هالكاسو تاجين عيالكي هذا يركي إسعاسي هذا محمد عبد اللطيف أجاسام مدحتويه ده نكاسو كتير يركي تريك وحيينك هاي اسمع أسر نكاسو كتير وحسينا يا مدولة النماء وحاسين مركا إنه وشيء إنه أمضى وورن كرنا لبيه 20 سنة من دولتنا ما تحس إنه مركا رمنا إنه فرماتشوك إيه إنه يخيره وإنه نحن عدالة ده حمر كمان صوص عطوا وراي دتك حمر روبا بيني والعدالة ده حمر بكتيرته حمر تاسونس عدالة بكتيرته بل محتوى الصومالي أشراف تجوك تقول بهن تجوك هوية تجوك مريحان كعب وير دتك تجوك وكشقية مش الصومالي أمانة اللي جهل اللي مجرته يجوا كم إيه كان دتك قليل أقوم بالكحشان دتك إياه نلسو شقية إياه تيم كيجا لما كان نيون القاب كسو شقية لكن بدلن وحس كم جلان يا يحجوي هدين لو يعيدك حكتا حاسك سوء أيه على أورنيا وبلنبي ويدي يتاع حقوق السوق وحاسو دمرك لو وشيكا كلا لكينيا قاب كاسي ورقمه بصير هذا أورن والناس نكاح مدولاش كقبة مدولاش كقبة سيدقي ناديركي تقول ما وحاسو ما مركزتك بدلن لما قبل إسكقبان أنا وحيد لما يجي مركز حلتان ويجري والله كانوا حيد لا هم بيتشون أنا قبل تقبل أما أنا دليل دول نمدو سامع دول نمدو وأنا أفكر الروح الشاء قنتيس دول نمدو ويكوعي على المعان كنا ويكبابيا ويكترين حبابي صدق عنه المعدار تمشتو عدك لو ماشي قد يساء متشرتو إنك لو متشرتين وأنا جاي لحظة كرا وحيش يجي كرا وهلك أنتوا إيه صفر يستورن كرا وحنا كويس إننا متشرتو أنا كم ساكت متشرتين مشتوجا ويدلمية والله بالله يطلع يدلمية أنا جا أوحد الحقوق تودا الله على وحي حيان متشرتو أنا جي صوّع عنده ورنو هذا وعي قناة والوحدة مش روبا ما هذا الكران حتى عيدوا حبش شيء كران أنا قرك كاسان صارنا وعندك كل شيء أم يعني قديم به لكن قرك صارنا حربانة وأنتوا بنان كيس حد حتى ديار كان سنكر ولا سوديك وحتى أنت حدان من ديار لسوديك ربيتشل وقصبا قروا واحد راح
maxay marka uu aniga ii sheegaya kuwarsangeliya oo dhubantay garowga jooga muxuu ii sheegaya oo aan dhowrka kiiloomitir ee garowga aan dhaafi karay aan taleex tagi karay xildhibaanada qaar oo wasiirada ku jira aan xudun tagi karay aan buucama tagi karay aan baran tagi karay aan galow tagi karay ee halkaas ka dhex taagan maxay ii sheegaya maxay ku qancinayaan dadkooda marka xamar looga keeno deeq dowladda Soomaaliya xamar deeq uga keento ay waxbarashadiisa wadooyinka ay dhisayso maanta mashaariic laga fulinayo dhaxar ma aragno mashaariic laga fulinayo suuqii la dowladda Soomaaliya dhisayso degmadii dowladda hoose ay dhisayso leerar lagu rakibayo korontada dowladda Soomaaliya mashaariicda ay bixinayso iyo xafiiska xildhibaanka waxay dadku u sheegayaan 20 sano maxay qabteen 20 sano hadday sheegaan waxay qabteen war hal ceel walaa boqol oo kun ku kacday hadday keenaan oo qabteen nimanka anu waa u garaabaya hal ceel Soomaali hal family waa qodan kara hal ceel haddii Puntland keento oo tirahdo intaasoo degmo oo sool iyo sanaagaan intaasoo ceel ka qodnay hadday keenaan garaadka waxda ma ka dhigaysanina ma keeni karaan hal ceel hal mashruuc oo MCH oo dhalaanka iyo hooyooyinka xitaa ma keeni karaan maxaa marka loo taageerayo loo haystaa oo dadka ay beenta ugu sheegayaan Soomaaliya dadku inay qarafsadaan oo dowladnimada Soomaaliya taageeraan mise dadka been baa loo sheegaya oo hartinimo aan baa la leeyahay wax harti leeyahay ma jirto waday maskiin u ahaa Ilaahay ha u naxariiso ugu dhintay yaan been qabriga laga soo saaray hartinimada wax ka horeysa ma jirteenimada ma jirteenka kula dhashay horta wax tar xildhibaanada wax ka sii anigu banaankaas la taaganahay aniga hartinimo ay sheegay hartinimada wax ka horeysa ma jirteenimada idinku cadaalad marka hore isu fala oo Maxamuud Salabaan oo kursiga u dhiyay ma jirteenka kale aniga iyaga naga horeeyay madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha Siiya marka iyagu dhameystaan oo filimku soo dhamaado anaga marka ku xigna anaga ku xigna laakiin inaad nin baacsataan oo Axmed Karaash aad tiraadaan Axmed Karaash oo amarkayga baad qaadan weydii beeshaadii baad weerar weey xilkaanu ka tuureynaa waxaas wax macquula iyo wax kali karaya ma وانا تي بلدان كبر لها أحمد كراش مركز فارس الكلام أنا والله رتادي شيء نكسب عن بانوقا معها تذكي أدهم وجود ريتشرتين أنا على شيء مع وأنا امتحانه وكان جسترا وبكيس هايستا بلدان بأمر لما قريت شرب على مغلية هسكتها بنن ويقطر ماشي كل جنا وشرع روابط بعصتين دور عب وعيال كمقطوعين سودان سعيد وديبتين سوق سلامة كان ير قدوميها برنامج وحنو شيء وريان لو شقيسان هراء لو شقيستي والدنيا أرن كان أيكو استعمالين تقدر كتورين وأتكلم هذا قول كحرام تحي إن هذا ريان لو استعمالين ويان لو بهنتي لقاه كيني ونكار لو بهنتي حتى هذا نمك هالشيسين كرين والسلح هذا نحدق كرين وهذا كده شقين كرين يجي إن أسسه دويسو وخيرنا وكتير دول النمدون أي ساعة الشقة هذين أعطي معلن ما دابعد هيدي شعيدين جبر ما كتاي نمك هو كرهيني ولا هادو عليه بدأ يقول أنا قدوم نقلي وراي قدوم نوجلسي وأنت الدربان أوتوماتي عبد الولي لأنه كوك عن عي وأنا هذا السوق أمريكا لا أنا هاي نكار بباه أنت فارس هيكلي نمك هسو يجا كربحية وأنا أوجي إندني وأفكار وقاعدني أدو تاير وريجي هيجري سياسة خبر دو مليء سياسة اللي يقانو متهد هوبكو في المهي ستد دقالة مهي ستد عقلكو في المهي ستد لطليالكو في المهي ستد ووحا لطريقكو وأوريرو إن حرسيو داشن اللي يراهد وهيركيسي صوت ديريان ودلال إنجليس كاهنجو كاسا لطريقكو مركا عقل آد هايسا مجرتو نينكا فاريس هيكل دي آدنا هوشا يقري كرين بنانكا استاك عنوكو مجر عدلين سنقلي بمانكا حتى هوكا هيلين فراحكا قاد بد هيكل ما أنتو دوغل وردي أنو عبال وين بانو هاي أحمد كراش لبا قاعدو أوريي ببرنامجka joogay tala inta uu seen lahaa iyo aqal dhooba wasi una la tiriyay hadana socota wayna ka go'onayd inuu ninka difaaco sharad waxaan ogahay aniga Axmed Karaash ficilkiisa hawliis la socota wax qarsoon ma aha inuu meel istaagay oo mowqif cad ka lahaa arinta in dhooba la weeraro marka sidii uu ninkaas u sameeyay hadii aadan sameeyeen oo aadan oranay Maxamuud Salabaan oo dalka cunto oo la qaday oo badii iibsatay oo wax kasta dhacday oo barnaamijkii weerartay oo baabi'isay oo aniga i keentay meesha reerkaygi ugu dirtay Axmed Karaash baad rabtaa inaad tuurtaan war faraha ka qaad hadii aadan oran karin banaanka istaagi karin hay gelin qol isku hoosta ka xidho hay soo gelina kule ama shaqooyinka kala qabso nimankii ku tuuray taladaadii xitaa maqal waayay taladaadii maqal waayay
anigu aan reey markaad meesha qabsatay dhooba la tuuray inaad tiraahdo power sharing baan galayaa 10 wasiir ama 5 wasiir ka yar ma qaadanayo ilaa ninka aqal wasaas u sheegaya ilaa hada soo jahadaysay oo nin aad meesha ka riixatay waa inay heshiis la soo baxdaa liis dheer la soo baxdaa oo tira liiskaasaan haystaa anigu heshiiskaasaan galaya kaay in wax laga bedelo kaay wax laga bedelo halkii wiilaad qortay ee gurigaaga joogay baa la magacaabi waay yaan ognahay oo ka miya yarka check ee ku ag fadhiya yaa adduunka la soo shaqeyn jiray waraaqdii aad qortay ee aad saxeexday ee madaxweynaha aad ka saxeexday ee aad dowladda Soomaaliya u dirtay ee kooxda immigration haysta ee aad ninka Muxtar Cabdisalaan maanta isaga ku hawooganaya troll waa tiinta la islaafay wuu yiri soo qoon lagu soo qoray dowladda maadaama maal uu ixtiraam sharaf iyo karaamo ku leeyahay meesha warninkii dhooban ma qabla buu ahaa taanin muuqdo ahaayo dheer oo qurux badan oo meelaha marmaro oo la arko oo balaaya waxba uu soo kordhin adiga lagu ma arko meel aad taagantay lama arko meel aad ka hadlayso lama arko meel aad taagantay lama arko waxaad qabanayso lama arko cid shaqo ma geyn kama aad muuqan meeshii ninkii iskama celin lama gorgortamin la indhamad door cad bacsatay oo inta mid magtooda qaadatay aad meesha timi xajjo ku dhisay marka anaga hadda dagaal kale waana caalo hayn anugu furin ninka aad u baantay fartiisa ha gelin banaanka kiisa way ka talo talada aan anigu ilmaadeertino iyo tolmo ku sinay waxa ka socday meesha anigu ina dani 200 oo ciidan oo reerkiisa uu garow keenay meel kasta isbaarooyin buu dhigay meel kasta garow hadda waa loo yaabaa meel kasta isbaara taal waa si 1991 ay Muqdisho ahaan jirtay meel kasta isbaar Ahmed Karaashna inta in leeg buu keenay hadda ciidanka dhubaantay oo joogay Soomaaliland xuduud ilaalinaya hadda ka soo baxaya garow wala sugu imanaya waxaan leeyahay kaldame 2021 18 May garow laga xusudana uma leeyahay Soomaaliland waxay helaysaa meel badan oo 18 May laga xuso iyaga qabsan doona الدفاع ما جرتو دتك الدفاعي ودبنا يهدي لا لغلغيو هدي لا لغلغيو كراها لا هيستو كراش قشياسي سي كجرتي انو سوق سوعلي gobolka soo hubkeedina uu haysta aqalgeedina uu haya taladina uu haya kara Saleebaan oo garaadkii u gaariyaan weyn garow fadhiya waa halkaas ka talinaya bahashu way isku aadaneed Saleebaan laakiin ma doonayaan waxa inay socdaan bahashu markay meel fiican marayso bay ma jaxaabinayaan dhinaca kale ka tuurayaan marka anu taas aan u baqaya 18 May 2021 waxa laga xusi doonaa garow ila cid difaacaysa ma jirto ilaa nimanka dhabeeyo aan waaqana ma dagaalamayaan xabadna iska celin karayaan ay iska celinayaan nimanka ama anagu Soomaaliya aan waxaan ama yaana ahaan laakiin dadka hortaagan ay meesha xuduud ku dhimana waa iyaga kuwa iska dhaadhicinaya ciidan Cumar Maxamuud iyo xuduud joog wiilka Cumar Maxamuud xuduud ka doonaya muu habar gidir difaac sheekooyinka aqliga aan lahayn aan qurbaha ku arkay saaqay hawiyaha lagu sheekeeyay aniga waxa lagu sheekeyn karo Saleebaan dadka ka yimid 10 daqiiqo waa 4 jeer baa la hadlaa wax kasta ogahay halka aan fadhiya wax kasta wahaya Cumar Maxamuud oo gaar ku dhimanaya xuduud ma jiro wallahi bilaahi tallahi ciidanka jooga dhulbahantii u daliyay wax kala wax yar baa soo raac dadka iyaga joog waxana keenay environmentiga meeshii degan yihiin miyigii way magaalo wadankoodii way marka easy ku noqonaysa in ciidanka la qoray qoryahooda qaataan laakiin wiil reer mahada ayaan ka keenaya buurtile dusheed oo keenaya tareex iyo halka inuu Soomaaliya ilaaliyo waxa soo aqriga gari karay anaga noo sheegsan ma maybe inay afar ama shan ka joogto laakiin ma jirteen baa Puntland difaaca waxas naga difaacayna meeshaan joogda haddaad ku xad gudubtaan sharciga oo wixii yaraa aynu qornay oo Soomaali kale lagu dulmiyay ee daaroodkii kale lagu dulmiyay ee hartigii kale lagu dulmiyay arabtayna baabiisaan dadii waa meesha marka uu kala yaacaya Puntland ma u jirisaan ma jirto hadii ninka Faris la qabo waa in meeshu qabsado loo jaraa loo daaya faraha laga qaadaa وطلعت هذه الشيء وعليكم السلام يا رمضان بالكتير عيد دين وسود عيد مبارك عاد بني سلام